بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن وناكسن داوداyaasha qiimaha qadarinta mudan ku soo dhawaada barnaamijkii xilligan kala laga barateen inaad ka daawataan telefishinka qaranka waa barnaamijkii socdaalka socdaalka alaab waxaan ku qaadaa dignaa ama aan ku soo qaadanaa waxyaabaha ugu dambeeyay ama hadalhaynta dunida qodobka ugu xiisaha badan toddobaadkaasi dalka Britain waan ku warqabnay inuu yahay dalalka ugu awood badan dunida oo haddana muddo ay bahwadaagayeen Midowga Yurub ayaa iminka waxa soo baxday in Ingriiska uu ka baxay Midowga reer Yurub haddaba saameyn intee leeg uu ku yeelanayaa ama ay ku yeelanaysaa dowladda Ingriiska xiriirkii iyo wax wada qabsigii ka wada dhaxeeyay Midowga Yurub iyo Britain dowladda Britain ayaa durbadiiba bilowday inay diiradda saarto qaaradda Afrika oo ah dal hodana macdan leh haddana ku jira macdanta ugu qaalisan dunida dheemanka isla markaana ay ku wareegsan tahay qaaraddaasi Afrika bad dhinaca bari waxa ka xiga badweynta Hindiya dhinaca galbeedna waxa ka xiga Atlantic Ocean dhinaca waqooyina waxa ka xiga badda Mediterranean-ka intaas oo mashaariic ah oo qaaradda Afrika uu doonayo inuu Ingriiska ka fuliyo maadaama Ingriisku ka baxay Midowga Yurub haddaba daawada ayaana ku dheeraan faalada filimka ay ku soo dhawaada codaynta dadweynaha ee aftida ayaa laga qaaday bishii June sanadkii 2016 xilligaasi oo 17.4 milyan oo qof ay sheegeen inay doonayaan in ay kala go'aan Midowga Yurub tani waxa ay siisay fursad dhinaca doonayay goosashada oo tiradoodu ay gaartay ama codadkoodu ay gaareen 52% halka ay dadka doonayay in ay ka sii mid ahaadaan ay heleen codad gaaraya 48%. Su'aashu waxa ay tahay muxuu yahay Midowga Yurub? Midowga Yurub waa midow dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo ku lug lahaa ama ay ka wada tirsanaayeen 28 wadan waxayna lahaayeen ganacsiyo xor ah oo ka wada dhaxeeyay kaasi oo macnihiisu ahaa in shixnadaha ganacsiga ee dalalka isweedaarsan karaan iyadoo aysan jirin canshuur dheeraad ah iyo hubin lagu sameyn jiray shixnadaha ganacsiga Midowga Yurub wuxuu sidoo kale lahaa isu socod dhinaca dadka ah nolosha iyo shaqooyinka taasi oo qof kastaahi oo doonayay in uu ka sii mid ahaado dadkuna ay dooran karaan in ay tagaan wadamada ay ka wada tirsan yihiin ee Midowga Yurub Ingriisku waxa uu ku biiray sanadkii 1973 xilligaasi oo loo aqoon jiray bulshada dhaqaalaha Yurub waxaana Ingriisku uu sidoo kale uu noqday dalkii ugu horeeyay oo ka baxa xubinnimada reer Yurub haddaba maxaa dhacaya haddii ay Britain ka baxdo Midowga Yurub kadib markii ay Britain ama UK ka baxday Midowga Yurub 31 bishii January sanadkii 2020 ayaa waxaa jiray waxyaabo badan oo laga hadli doono oo dhinaca wada xaajoodyada soo socda diiradda lagu saari doono bilahan soo aadan marka Britain ama UK ay isku raacday heshiiska ka bixitaanka reer Yurub labada dhinac weli
waxa ay u baahan yihiin ayaa jira oo ku saabsan inay go'aan ka gaaraan waxyaabaha mustaqbalkooda ah iyo sida uu u ekaan doono intaba. arrimahan ayaa laga shaqayn doonaa baa la yidhi waqtiga kala guurka oo dadka qaarkood ay doonayaan in loogu yeero xilliga hirgelinta, kaasi oo si dhaqso leh u bilaaban doona kadib marka ay Britain ay ka baxday 31 bisha January, iyadoo waqtiga hirgelinta arrintan la qorsheynayo inay gaarto ilaa iyo bisha December dabayaaqadkeeda ee sanadka 2020. 11 bilood ee xilligaasi loogu talagalay ayaa UK waxaa la sheegay inay sii wadan doonto shuruucdeeda xagga Midowga Yurub iyo cilaaqaadkeeda oo ay sidoodiisii ahaan doonaan. xilliga kala guurka waxaa loola jeedaa in dhinacyada la siiyo fursado ay ku neefsan karaan, iyadoo goortaasi ama xilligaasi laga sii wada xaajoon doono heshiisyada cusub ee xagga ganacsiga ah. tani waa loo baahan yahay maxaa yeelay UK waxa ay ka bixi doontaa baa la yidhi suuqa iyo midowga canshuuraha. dhammaadka waqtiga kala guurka heshiiska ganacsiga xorta ah ayaa u ogolaanaya in ay ku dhex samaysan karaan wadamada Yurub iyagoo wax canshuur ahi amaba hubin aan lagu samayn karin ganacsatada UK. haddii aanan mid cusub la gaarin ee heshiiskaasi, UK waxa ay wajihi doontaa baa la yidhi rajada in ganacsiga ay la samaysato iyadoo uusan jirin wax heshiis ah oo la gaaray, taasi oo macnaheedu uu yahay in tariifada cusub ama canshuuraha ee shixnadaha laga qaadayo ee badeecadaha UK ee u safraya ama tagaya dalalka Yurub iyo ganacsiyada kale ay la kulmaan caqabado cusub. taasi marka laga soo tago dhinacyada badan oo ah mustaqbalka cilaaqaadka Yurub iyo UK waxay u baahan doonaan inay go'aan ka gaaraan. waxyaabaha laga gaarayana waxaa ka mid ah: 1. Ra-iisul Wasaare Boris Johnson oo ku adkeysanaya xilliga kala guurka, waxaana ka mid ah in la doonayo in dib loo dhigin ama aan la dheerayn karin, balse guddiga midowga reer Yurub ayaa doonaya oo ka digaya in jadwalka ee xagga kala guurka ahi uu ka imaan karo baratan ama hardan xad-dhaaf ah. waqtiga kala guurka ee dhinacyada ka bixitaanka UK ayaa horey heshiisyo looga gaaray. heshiiskaasi oo loogu magacdaray heshiiskii ka bixitaanka. ugu badnaan arrintaasi waxaa heshiiskeeda la gaaray xilligii dowladdii ay majaraha u haysay Theresa May, balse kadib markii uu yimid Mr Johnson oo iyada bedelay bishii July sanadkii 2019, wuxuu meesha ka saaray qaybtii ugu weyneed oo ay dooda ka taagnayd. dib u dhaca tallaabadan ayaa loogu talagalay inaysan jirin ama aysan dhici karin xuduudo iyo caqabado u dhaxeeya waqooyiga Ireland iyo Jamhuuriyadda Ireland kadib ka bixitaanka. haddii loo baahdo, UK waxay xiriir ganacsi oo dhow ay la yeelan doontaa midowga Yurub. heshiisyada Johnson waxaa ka mid ah xuduudaha canshuuraha ayaa la dhisi doonaa, iyadoo Ireland iyo Great Britain shixnadaha galaya waqooyiga Ireland kaga imaanaya Great Britain iyaguna la baari doono, waxayna bixin doonaan canshuuraha xagga la soo degitaanka ama soo galitaanka ah ee loo yaqaano tariifada. taageerayaasha dib u habeynta canshuuraha ayaa sheegay in tani ay u ogolaanayso UK si loola xaajoodo heshiiska ganacsiga dalalka kale, kuwaasi oo aan suurtagal noqon karin xagga dib u dhaca awgeed. xuquuqaha muwaadiniinta Yurub ee UK iyo kuwa
Britain ee jooga Yurub ayaa sidoodii ahaan doona xilliga kala guurka. Britain ayaa lagu waday 29 March sanadkii 2019 balse ismariwaa ayaa sababay in dib loo dhigo 2 jeer kadib markii mudanayaasha baarlamaanka ay diideen inay kala xaajoodaan oo ay la galaan Mrs May oo ahayd ra'iisul wasaaraha. qaar badan oo ka mid ah muxaafidiinta iyo xulafada baarlamaanka ee qolada DUP ayaanan ku faraxsaneen in la joojiyo iyagoo ka murmay in UK ay sii xanibnaato iyadoo la hagaajinayo arrimahan si loo xaliyo. Ra'iisul wasaare Johnson ayaa u baahnaa waqtiga inaan dib loo dhigin sababtana waxa ay ahayd kadib markii ay mudanayaashu ku guuldareysteen in dib u eegis lagu sameeyo sharciga oo loo gudbiyo. tani waxay horseeday in ismariwaa cusub uu dhasho. Ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa axsaabtiisa muxaafidka waxa ay leeyihiin 80 kuraasta aqlabiyadda ee baarlamaanka iyadoo baarlamaanka ismariwaa weyn uu soo kala dhaxgalay ayaa Johnson waxa uu ku baaqay doorasho guud.